السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركيني هورا وحو نوغو جوغي intaas oo stringiska ka waramay. Hadaba si aan casharka u dheeraan ayaan video kale ka soo duubay si aan waqti ugu dheeraano aanad uga caajin. Marka kan waxaan kaga hadli doonaa string functions ka stringiska la isticmaalo badanka website-iska isticmaalaan kaasan ka hadli doona. Hadaba waxay noogu joogtay combination oo la mid tahay paragraph 1b1 marka studenti waxaan ku xiraynaa combination dhibicdaasi waa concatenate noogu xidh ama noogu dar intaas. markaan echo nidhaahno inta waxa soo baxaysa labadan oo la isku xidhay labadan oo la isku dhijiyay waxaanan ku sii daba xidhnay intaasna waa igu sii xidh string caadiya oo isku xidhka labada paragraph halka waxaan ku bedelnaa original string aan save karayno aan halkan ku sii darno walibana bes halka ku jooji halkan hr ku daro line hoose marka waa kan haddaan refresh karayno wakaas original string waa ka student who came late in the class sitting the last with rock. Hadda waxaan eegnaa string functions sidoo badbedelo baalkii string gainers. Hadda waxaan soo qaadanaa PHP kala furana code waan xidhaynaa. Hadda waxaan soo qaadanaa combination waxaan odhanaa UC waxaan odhanaa uppercase first marka sidaan intani waa code HTML haddaan save karayno haddaan save karayno okay uppercase first weli code PHP yamaan qorin okay codekii PHP ga halkan ma qorinaa waxaan odhanaa UC first waxa weeyaan waaweyne waa maxay waaweyne combination kina soo qaado variable kina soo qaado halkan geli waa maxay waad arki doontaa waxa u dhigantay no save karay markaan refresh karayno weli waxaan soo bixin maxaan ka tagnay waxbaan ka tagnay argara waxaan ka tagnay echo ayaan ka tagnay echo oo de variable kaliya tama iska oran karnaa bila echo variable ka soo birinti karamay iska oran karamay no ekaan ka tagnay markaan refresh karayn arkisa UC first markaan isticmaalno st way weynaatay tan dib ugu noqono maxaan sameynay waxaan halka gelinay UC first oo uppercase first haddaan imka halka ka saarno waxaan doono gelino hello baan gelinay waa arkaysaa h2 ina yartay siduu bedelo arki doontaa haddaan eegno marka hello adigu ama string geli ama variable geli waa isku mid كادونتي توسكميت وكوا وينيسينيا طلبات أن استعمال دوننا string function طلبات وحويان uppercase words يدو words كا أو done uppercase لقدري مركا هالكاسون بنقونيسا UC words نون save كرينا ورefresh كرينا isku sii daba daray br aan isticmaal halkan waka uppercase words dhammaan wordska mid kasta ugu horeysa waa uppercase buu ka dhigayaa st wd cd lt id td cd st kanna kaasoo kaliya tunbu ka dhigayaa on uppercase marka saasi ku kala duwan function kenas laba function baan soo dhiganay UC first iyo UC words
labada function wixii bartanka la galiyo bartanka hadii variable tahay hadii string tahay kani wuxuu uppercase buu ka dhigayaa erey kasto ugu horeeya kan kalena ka ugu horeeyo buu uppercase ka dhigayaa ka damban barka ku xigaan baranna waxa weeyaan intan hadan tan copy garayno and paste garayno uppercase lowercase words marka waxaan sameeynaa start words marka halkaas use words ku wuxuu ka dhigay waan isla soo fahnay inuu erey kasta ugu horeeya lowercase ka uppercase ka dhigay si start lower wuxuu ka dhigayaa kana start lower wakaas marka waa inuu blue ku noqdo ama de waa inuu color yeeshaa aanu la mid noqon de wax string caadi ama wax iska qorqortay aan noqon hadda wax iska qorqorno waxa madow noqonaya marka waa inuu sidaas oo kale ku noqdo strt lower anagno kana wuxuu sameeynaya anagno waad arkaysaa str student who came late in the class sitting in the last with rock wuxuu la mid yahay original string-giiha kaas student who came late marka wuxuudiyo dhan wuxuu ka dhigay lower buu ka dhigay wuxuudiyo dhan wuxuu ka dhigay lower ayuu ka dhigay wuxuudiyo dhan lower buu ka dhigay okay intaas iyo intaasi waa isku mid marka uppercase first waa togo horeyso uppercase iga uppercase words waa erey kasta alpha balki ereyga ugu horeeya wax ka dhigtaa uppercase ka dhig marka kan waxaan isticmaalnay use first use words strt lower intaasan isticmaalnay strt lower mid kale save hadana copy sano pr no kale deji save karsana lowercase uppercase words dhammaan kana strto upper strto upper waka aan save karayno aan eegno dhammaan waad arkaysaa wuxuu ka wada dhigay upper buu ka wada dhigay marka website-isku string functions kan aad baa loo isticmaalaa waa inaad garanaysaa use first use words strto lower strto upper hadayalsan teeda labaad kalena ha ku dabaqin intan waa code PHP oo waxay u dhigantay saas oo kale hadaad sidan u baratay laga yaabaa inaad sidaa u baratay isagoo sida loo kala dejinayo aad baratay baa laga yaabaa waa isku mid ama wada sida u kala deji ama mid yar oo kaliya ta ka dhigba ka doonti hadaan refresh karayno waxba isma bedelayaan waan sii wadaynaa waxaan kaloo eegaynaa qaar kale ayaan sii eegaynaa marka kan noo soo koobiyey waxaan ka dhigaynaa halkaas repeat waa code html intan oo de waxba bodigiiba ku dhex jira waa ka codekeeni PHP waxaan odhanaa repeat waxaan kasii yaro horeysiinaa str string repeat marka combination keeni oo ahaa words aan tune idhaahno bal aan eegno waxay stringgaas qabanayso repeat maaragta repeat student who came late in the class sit in the last with rock hadana student who came late in the class sit in the last with rock muxuu noo qabatay
laba jeer kan noogu soo celi weeyaan repeat haddaan idhaahno saddex jeer buu soo celinaya repeat kaasoo noo qabanaya str repeat str saddex jeer oo kaas waa arkaysaa saddex jeer waad arkaysaa haddana noo soo qaba intan br badhe mar kale baabi waxaan odhanaa make substring from one point to another inta soo noo sharaxaado waxa weeyaan substring waa isticmaalnaa substring waxa weeyaan in buu noo soo geynayaa in ayuu noo soo geynayaa substr marka combination waxaad ka bilowdaa 2 waxaad ku joojisaa 5 inta doonaysid isticmaalsa aan eegno waxaan idhi make substring from one point to another maragtaa an udent wuxuu soo gooyey student samaha timesad baan ka bilownay baan idhi talabaad ka bilow marka talabaad imisa waa 0 1 2 maragtaa udaas weeyaan udaas waa ka udi imsaan soconna 5 soco la idhi 5 erey soco marka staasi waa 0 maaha 1 0 tida wana uda 2 marka udi wata waa marka 5 mid baa soconaysa 1 2 3 4 5 marka waa 1 2 3 4 5 waan ku sii dari karnaa 10 baan ka dhigi karnaa waan save kareynaa 10 waxay meelaha waxay ku joogaysaa 5 Soomaali 6 7 8 9 10 ilaa huuba la raacinaya aan eegno wata aragta inta doonaysid waad ka soo jaraysaa haddaan doono halkan waxaan ka soo bilaabi karnaa 0 xagga ugu horeysa iga soo bilaab aan refresh kareyno waka student who haddaan mid halkan kusii darnaan ka dhigno 11 huudu oodii baa raacaysa oodii ayaa raacaysa way ka kalaan baranana waxa weeyaan br aan idhaahno baabi marka baabisida waxa ku qorta find position marka intaas waa intii html-kii intan aan ku dabaqay inta macal make substring from one point to another ana inta qoray wata inta from one point to another inta ku dabaqay intaas ma inaan qoray weeyaan intaas PHP code ku noo soo saaray way aan eegno hada find position ka xorana str pos find position ka comma 2 yo kale aan save kareyno find position 2 yana odhan keeban doonina imika haddaan doonayno imika kaba soo qaado kale kam oo kale ma noogu jirtaa kam aan eegno maragta waxa muu noo soo saaray waayo kam kuma jirta waa kim aan halka ay ka dhigano position ka 12aad buuri wuxuu ku jira position ka 12 aan tirino 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 maragta si kam 12 ku jira haddaan idhaahno who teebi ku jirta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odhanaya who haddaan idhaahno who aan save kareyno state okaas marka waa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ha statead buu ku jiraa statead ayuu ku jiraa marka waxaan soo barnay uc first waxay noo qabanaysay inaan ereyga xabada ugu horeyso abarkiisa ka dhigno uc words erey kastaba ereyga ugu horeeya wordka ugu horeeya abar ka dhig str lower
waxa weeyaan dhammaan lower case ga dhig strt oo upper dhammaan upper ga dhig str repeat underscore repeat waxa weeyaan imsa jeer baan soo celiyaa weeyaan variable-kan oo kan noo hay in ereygi noo hay beera strt waa isoo jar 0 ka bilow ilaa 11 str position halkeebu ku jira weeyaan position ka imsa ay ku jira midhow gudam save kar ay inta delete kare character way waxaan aran str ch r aan save karayno character keeban doona walibana sat save kare ay character ka sat mu ku jira may kuma jiro aan idhaan hadaba aan save karayno wakaas meel kasto ee ku jirto una soo goynaya haddana idhaahno I wata halkii ay aydu ku jirtay ayu insert in the last with rock halkii aydu ku jirtay aynu soo baalinaya ka haddaan idhaahno imka ka soo qaad arrow client aydu in fara badan bay ku jirtaa arrow client haddaan idhaahno aan save karayno aan refresh karayno arrow client aan soo baxaya waa intii ku jirto way wax kale oo jira inkastoo video dheeraaday haddana intaasan ku joojinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax kale oo jira str length oo ku sheegaya lengthka variable-kaaga iyo qaar fara badan oo kale google ka sii baadh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi